السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي قالوا كسر وهذا مركز علمي تك يوتيوب channel كتاك عصب تاس سبسكرايب ده هدي أنا شو تنسي جب فيديو كان لايك ده شيرنا ده كومنت تقولوا وعرك iskusoo noqod wanaagsan saaxiibayaal fiidiyowga maanta waxaan uga hadli doonaa update-ka BS 2022 ama eFootball 2022 kaas oo lagu dhawaaqay update-kiisa haddii wax yar aan dib ugu laabto sanadkii hore waxa ay yiraahdeen game-ka waxaan update gareynaynaa Autumn-ka oo 2021 Autumn-ka markaas waxay ula jeedaan dayrtuna waxay ku aadan tahay bisha November ilaa sanadka dhamaadkiisa intaas inta u dhaxayda ayaan update gareynaynaa game-ka ay yiraahdeen sanadkii hore waana xilligii ay mar walba game-ka update gareyn jireen markii sanadku sii dhamaanayay ay waxa ay yiraahdeen game-ka waxaan rabnay inaan wax badan ka bedelno oo yeeyaasha iyo iconic-ga qaabka loo dheelayo xataa lacagaha iyo wax walba oo game-ka ah qaabka uu yaalo skills-ka wax walba ayaan rabnaa inaan wax badan ka bedelno marka xilliga oo aan rabnay ku update gareyno ma noo suurtagelayso waxaan u baahanahay markaas xilli dheeraad ah game-ka update-kiisuna dib ayuu u dhici doonaa ilaa spring-ka ay yiraahdeen spring-kana waxaa loola jeedaa ama ay ka wadaan waa guga oo markaas ku jira 2022 spring-kana waxa uu ku aadan yahay bisha March 20-keeda ilaa bisha June 21-keeda ee sanadkan 2022 markaas iyadoo markaas halkaas ay joogto bishii February ay markaas waxa ay yiraahdeen hadana game-ka waqti dheer ayuu u baahan yahay oo 6 bilood ugu yaraan ayaan u baahanahay ay yiraahdeen laakiin maanta oo taariikhdu ay tahay March 25-teeda 2022 ay waxa ay yiraahdeen markaas game-ka update-kiisa waan soo gabagabaynaynaa oo game-ka waxaan update gareynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan laakiin maalmo aysan qabsan waxay dhaheen sida ugu dhaqsiyaha badan inta lagu guda jiro spring-ka oo 2022 spring-kana sidaan idin sheegay waa taariikhdan kasoo bilaabato March 20-keeda ilaa June 21-keeda ayaga waxay yiraahdeen markaas spring-ka gudihiisa ayaan game-ka update gareynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan iyadoo ay sidaas tahay ay markaas waxyaabihii ay sanadkii hore sheegeen oo ahay in game-ka ay waxaan ka bedeli doonaan sidaan ka dhigi doonaan laacibiinta oo aan video hore uga hadlay videogiina uu yahay midkan videogan aad ku arki kartid markaas haddii aad si daba raacdid waxyaabihii ay sanadkii hore dhaheen waan ka bedeli doonaa haddana waxyaabo dheeri ay ku soo dareen markaas in ay ka bedeli doonaan laba ugu muhiimsan ayaan ka soo qaadanayaa mid waa contract-ga midna waa mobilada oo markaas game-ku ku shaqeyn doono haddii markaas aan ku hormaro mobilka uusan markaas game-ka ku shaqeyn doonin waxa kamid ah example haddii oo mobilkaada Android yahay waa in uu ka sareeyaa version-kiisa uu ka sareeyo 7.0 waa inuu ka sareeyaa ama oo 7 ahaada sidoo kale mobilka aad basic ku dheelaysid waa inuu RAM-kiisu ahaado 2 iyo wixii ka sareeya sidoo kale haddii mobilkaada uu yahay iPhone oo aad iPhone isticmaashid waa in iOS-kiisu uu yahay 13 iyo wixii ka sareeya 13 iyo wixii ka sareeya waa inuu ahaadaa si kale haddii aan kugu dhigo waa in uu ahaadaa iPhone 6s ama ka sareeya haddii uu iPhone 6 yahay ma kugu shaqeyn doono midda kale lagu soo kordhiyay ayaa markaas waxa ay tahay meesha hadda contract-gu markii aad laacib contract-ga aad siisid oo ay noqonayso 10 waxaa laga dhigi doonaa markaas 60 ayaa laga dhigi doonaa oo markii aad laacibka contract hal mar ku dhufatid waxa uu tagayaa markaas 60 ayaa inaad ku dheeli kartid sidoo kale marka game-ka update laga dhigo oo markaas aad gudaha u gashid waxaad heli doontaa 10 xabo oo markaas aad laacibinta oo contract ah oo markaas laacibinta aad ku sameeysan doonto ama aad contract-gooda ugu soo celin kartid ma kula tahay in ay game-ka ku update gareyn doonaan xilliga ay sheegeen oo ah spring ama guga oo ah inta aan la gaarin 22 bisha June comment-igu hoose noogu soo reeb aragtiduna waa noo muhiim saaxiibayaal intaan video waxay ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh